daawad waan ku salaamay kusoo dhow muuqaalkan maanta aan kaga hadli doono mashaakilaadka uu sababay Shahrukh Khan kadib markii uu ka soo qayb galay aaska loo sameeyay gabadhii reer Hindiya ilaa Tamangashka. daawad sidaad ku aragtay baraha bulshada ama aad la socotay warbaahinta caalamka labada cisho u dambeeyay waxaa socda aflagaadooyin iyo hadallo xunxun oo loo adeegsanay dadka muslimiinta ah. Anakan waxa uu soo bilaabmay kadib 3 cisho ka hor markii uu aaska qayb galay Shahrukh Khan loo sameeyay fanaanadii reer Hindiya ee qaadi jirtay heesaha Hindiga ilaa Tamangashka taasoo ku dhimatay gudaha Hindiya da'deedu ahayd 92 sano. Shahrukh Khan ayaa ka soo qayb galay aaska fanaanadan isagoo ay la socoto xaaskiisu. Kadib waxa uu Shahrukh Khan sameeyay inuu Qur'aan ku dul akhriyo meydka. Markii uu dhammaystiray Qur'aankiina waxa uu isku dayay inuu ku tufo taasoo ka cadhaysay guud ahaan dadka Hinduismka ama Hindida dhamaantood isla sababtuna ay tahay nacaybka ay muslimiinta u qabaan. intaa kadib waxaa sare u kacay mudaharaadyo lagaga soo horjeedo Shahrukh Khan heer ay gaadhay in dowladda Hindiya ay ilaalo gaar ah u dirto Shahrukh Khan gurigiisa iyo meelaha uu degan yahay. daawad arrinku waxa uu faraha ka sii baxay kadib markii jaamacadaha gudaha Hindiya ay soo rogeen sharci ah inaan xijaab lala soo geli karin gudaha jaamacadaha. taasi oo maalintii shalay toolahayd gabadh geesiyadii ay soo dhex gashay gudaha jaamacadda taasi oo ay hareereeyeen boqolaal ragii oo ay ku orinayeen ama ay ku qaliyeen ayna lahaayeen xijaabka saar balse iyadu waxa ay iska sii wadatay hawsheedii iyadoo oo takbiiranaysa ayaa ay gudaha jaamacaddu isu socotay balse waxa soo celiyay professoradii ama macallimiinta jaamacadda ayaa soo celiyay. intaa kadib waxaa sii xoogaystay mudaharaadyada labada dhinac ee gudaha Hindiya taasoo muslimiinta ay badankoodu ay sameeyeen mudaharaad. haddaba islaam nacaybka Hindiya ma ahin mid imiga soo bilowday sanadihii ugu dambeeyay waxaa jiray in gudaha Hindiya lagu mamnuucay in lagu xidho xijaab taasi beddelkeedana ay muslimiintu mudaharaadyo waaweyn dhigeen. arrinkani sidii aan hore u soo sheegnay waxa uu ka soo bilaabmay ka qaybgalka uu ka qayb galay aktarka Shahrukh Khan Asnanada Latter taasoo ku dhimatay gudaha Hindiya iyadoo jirta 92 sano. waxaan aad u taageersanahay oo codkeena ku biirinaa shucuubta muslimiinta ee ku nool gudaha Hindiya inay helaan xuquuq la mid ah xuquuqaha ay helaan dadka iyaga Hinduismka ee gudaha Hindiya.